السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال يدقيست يالبا وبرنامج كني إسراع في سوماليا وآلها بقى أو قبرتين ما لي ولا أحد أفرت قلب منه لندن تايم لأنه كان يديك سودينه سيدي أن هرو يدي كوبلان قاضي أما عدسك تدوينه وعادو قبلنا أيا ما أنت وحي نقلينا هدي إله أود اللي أقراضه إسراع تلك الصومالي ده waxaan magan uga ahay dadka ay daawanaya ama idageysanaya waxaan imika aan ka sheekeyn doonaa maaha qabyaalad waa qabiilada Soomaaliyeed israacoodii halkay ka soo jeedaan halkay ka yimaadeen intii anigu aan soo ururiyay ee aqoontayda ah waa cabdi good iyo aqoontiisa boqolkiiba boqolna sax maaha boqolkiiba halna khalad maaha waxaan ka soo ururiyay qofka ugu yar ee aan la kulmay waa 63 jir anigu waxaan waxyi iguma soo degin kumanaan dhalanin laakiin waa waxa aan soo ururiyay 12 ka sanadood af Soomaaliga aan waday bal af Soomaaliga iyo dadka ku hadla halkay ka yimaadeen halkay ka soo jeedaan sidee yihiin haddii ay wax iga dhiman yihiin ku dar adigu ha igu maagin walaalo ku dar haddii mid meel kala galay ku dar walaalo hagaaji ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu buuri rasuulku wuxuu qabiilku waa uf buuri ay qabiiladu waa uf buuri ilaahay qabiil buu inoo abuuray way isku kala garanaynaa qabiiladu waa qarmuun marka aadnima tahay aan kugu jeclaado ama aan kugu raaco ama aan kugu nacamleeyo ama aan kugu dabanaageeyo ayay noqonaysaa bahashu qarmuun laakiin qabiilku deeyda nabi maxamed ba quraysh buu ahaa reer binu haashim buu ahaa lama diidana anigu cid baan ahay adigu cid baatay bal haddaba inaynu isbarano yaa Soomaalidu waa intee bal inaynu asal raaceen dirso ugu baadisoo اللي براتو قبيلة الصومالي دقة قاربة كحشونية ورا لقى ما حشوده ووحى كلي إلا يسوق قرطه ووحى كلي إلهي قرآن كيسي ينقول شيء إنه يسوق قرانه كلي اللي تعرفه ووحى كلي إنه كره محرمي ووحى كلي يسوق كيف صحي waxay adduunka kaga duwanahay walaal inuu inantiisa ku qaldamo ama yaani cid kale ku qaldamo marka ugu horeysa marka la isqabiil warsado ayad waxaad garanaysaa halka ay inantu ka soo jeeday cid ay u dhalatay cid ay tahay golaad imanaysa nin baa kula xidhiidhay nin baa kula gacala nin baad ma garanaysaa waxay sutihiin nin baa dhinac waxay isaga tihiin nin baa dhinac iska soo gashaan marka la iswaraysto dadku wixii soo haabo la garanaya dibadna hadal milgala lagu sheekaysanaya laakiin haddii ay noqono ma garanaysaa jaantaar wixii doona lagu hadlo waa ceeb anigu waa wixii aan soo ururiyay aqoontayda ah walaalo cida uu xadibsan dib uma jeedo kaliya sida uu kala baxan wixii aan soo ururiyay wixii iga dhamaan wadi soo sheegi karta ama waad ku dari kartaa haddii mid meel kala galayna waad ku saari kartaa adigu halkii wanaagsan waad gali kartaa dhaqankeena ama Soomaalideena sideedaba waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxa ay ka timi sagaalka Soomaali taariikh ku fog ma jirto baa la yiraahdaa waxa inta badan la isku hayaa waa magacyada sagaalka Soomaali haddana waxa la isku hayaa jilibadii hoose iyo lafihii hoose kaas halkaas u gala war sidan ay tahay bay tahay wax walba waxba kala duduwan Soomaaliyaasha saddex laba siyood baa loo sheegaa mid waxa loo sheegaa xanafe Soomaali iyo xinaftira Soomaali oo dala Soomaaliya irir Soomaali garjanta Soomaali gardheere salaama Soomaali mayla Soomaali malka Soomaali iyo maqaarle Soomaali dadka haddana si kale waxay u sheegaan waxay waa maqaarla Soomaali iyo yabuure Soomaali iyo xiriir Soomaali mayla Soomaali garjanta Soomaali karro Soomaali gardheere Soomaali iyo irir Soomaali baa la yiraahdaa waa sagaalkii oodood ee Soomaaliya inta deegaankeedu yahay ilaa iyo inta Itoobiya imika maamulka Soomaalida lagu magacaabo Djibouti NFD iyo labadan kale waqooyi iyo koonfur la yiraahdo intaas marka la isku daro Soomaalidii deganeed baa inta ahaan jirtay baa la yiraahdaa iyo reer kale oo yar oo xoogaa marka imika ay ka sii joogaan iyo reer badan oo waaweyn
dad intaa dabadood yimi baa jira dawladda ajuuraanka oo kale markii baayac mushtarka iyo dawladda cadal la oran jiray ifaat iyo yani boqortooyooyinkii direed ee direerka dir lagu yiraahdo ay lahaan jireen dad iyagii hoosima jiray oo tarmay baa iyaguna jira dadka waxay ku yihiin Soomaalaha dhalasho oo iyagaaba Soomaali ahaa waxna deegaan bay Soomaali ku yihiin oo way yimaadeen dadna Soomaali noqdeen oo Soomaalihii ay la degeen bay la naf qaybsadeen dadna deegaan bay ku noqdeen Soomaali badanka reeraha maanta nool ee Soomaaliya deganina deegaan bay ku noqdeen Soomaali dhalasho Soomaali kuma aha in yar mooyaane inta badan reeraha lagu raahdo garjanta Soomaali iyo gardheera Soomaali iyo dir baa laga yaabaa in Soomaalidii horena ay ka sii joogto inta marka aynu eegno ayaa waxa jirta reeraha lagu yiraahdo imika raxan weyn waa reerahan Soomaaliyaasha oo isu tagay badankooda iyo qaar kale 8 iyo 9 oo imika marka la leeyahay bohoraadka iyo geeda gooyahayo geeda gooye baa bohoraad laf kamid ah macallin weynaha marka lagu leeyahay waxa la yiraahdaa waxay ka soo jeedaan qabiilka Isaaqa la yiraahdo oo kale hawiye ka soo jeedaan daarad bay ka soo jeedaan reer kale ka soo jeedaan eelaydo kale iyaguna waa reer jira way fara badan yihiin 9 iyo 8 weeyaan markaad eegto yaxriya tuuray iyo gahaylaha iyo hinjiyaha reeraha loo yaqaan madigaanka iyo xarlaha ama xarlayaan kuna xarla lagu yiraahdo ama ma garanaysaa eelayda mihriga hubeerka tumaalka mishinguuliga yaquuliga eelayda sanaayo qoomaal reeraha markaad eegto waa reero aan Soomaaliha gelin iyagu qaar kamid way gali karaan laakiin anigu sidaan aqoonto hayo waa reero aan iyagu Soomaaliha gelin oo iyaguna ku nooc way bal waxaynu markaa doonaynaa imika marka aynu soo eegno reeraha lagu yiraahdo imika maqaarlaha halka muran baa ka jooga kow maqaarla Soomaali aynu ku bilowno maqaarla Soomaali waxa ka jooga muran waxa lagu oranayaa cawaramla jilib warsangariga kamidana cawaramla waa la yiraahdaa way maxay kala qaadaan imika markaad eegto cawaramlaha wuxuu kala baxaa marka uu isagu cawaramla noqonayo marka uu noqonayo maqaarle Soomaalaha ayaa wuxuu noqonayaa garlabe iyo gabooleen iyo arinta gabooleen waxa uu dhalay baa lagu oranayaa Ismaaciil iyo Ciise iyo walaaday iyo Iidle ayuu dhalay baa lagu oranayaa yibidaatu dhalay baa lagu oranayaa iyo maatano waayahay arintuna ayuu dhalay baa lagu oranayaa miskiin waq iyo tolkiisi waayo waa tol Ciise iyo Muuse ayuu dhalay baa lagu oranayaa waaye garablana ayuu dhalay baa lagu oranayaa ayadoon li Axmed Mure iyo saddexda talo same waa marka uu noqonayo Soomaalaha cawaramle Cismaan warsangeli baa jira isna oo wariig hayay cawaramle iyabuu noqonayaa idilmugo iyo wadalo iyo wadalmooga iyo qabiiladaas uu isna noqonaya marka de magaceedu way iskeeni karaan oo waxa laga yaabaa de la magac weyn kala dhaxan laayeen oo cawaramle warsangeli uu ka yareeyahay ka magaranaysa Soomaalaha oo usba uu la baxay laakiin de laba cawaramle ay jiraan way noqon kartaa waayo magacyadu way kala duwan yihiin maadaama magacyadii labada dhinac cawaramle ay maartay iskaga mid yihiin mooyaan magacyada ay kala duwan yihiin daadmiis warsangeli jilibkiisu waa yareeyay waa jilib jira ودي آذن يا محمد يا عثمان والله بحي محمد كم ورنيا كانوا نقولنا مايا ولا محمد والله ما قلنا كذا والله ورحم الله وكل دي وقتها والله كلا بحي وي المركز إنه يبو رسم عليه وحلو قرنا يا وحول نقولنا يا علي هبير ما يعني يا حارا يا ما يعني يبو نقولنا يا علي هبير يا قلبي waayahay kulliye ayaa isaguna jira galbiye iyo kulliye ayaa iyaguna jira oo waa kuwaas waa yabo rasamaalo inta wax si dhaafsiisan oo reeraha aan anigu ka hayaa ma jirto waa reera yar oo aan diiq ku soo helay haday badan yihiin aqoon uma lihi wala baari kara iyagana way mayla Soomaali markaynu eegno xariira Soomaali anigu xiniftira xamara Soomaali anigu hayay
xamara Soomaalian hay laakiin xariira Soomaali ma hayaan waayahay mayla Soomaali markaynu eegno cudur midig kashiin iyo xawaad loo noqonaya haddaynu eegno xawaadluhu muxuu noqonayaa xawaadluhu wuxuu noqonayaa afarta samatalis iyo adeerkood waa farmageeda samatalis walaxmooga waa farmageeda samatalis diga samatalis Cabdalla samatalis Yuusuf samatalis iyo walaxmooga adeerkooda markaad eegto faraca la yiraahdo hadii jeer ugu fakaday ama ugu laandeer yahay la yiraahdo yaani ugu dee xagga abtirsiinta waxa weeye marka Yuusuf iyo marka laga tago Cabdalla iyo marka Cabdalla samatalis Yuusuf samatalis iyo marka la tago farmageeda samatalis waxa uu faraca u dheer noqonaya علي مدحويني يبر مدحويني يبر سعيد إبراهيم سعيد علي مدحويني أقوم كي يبر مدحويني خيره حاسة أدوق المدعين يرتشي ذنيان وين هل كامر كانوا حوالي الله كي تقنون أي واحد نقول لنا حمرنا ما هي أنا حمرنا سمالية حرنا سمالة منا ما هي لبدا حقنا ما هي عندنا كما هي عندي صوباري كرتاوي صوباري كرتاوي وان واي عند إحنا وان واي haddii jiraan walaal emailkayga la soo xidhiin fadlan aynu ku kordhinay garjanta Soomaali markaynu eegno waa sarasoor baa lagu leeyahay digoodiye gaal jecel iyo masaare waayahay iyo ciise iyo dhalamo iyo dhalade iyo garjante waa dhalamo garjante dhalade garjante walaxmooga garjanto adeerkooda waay maxaa kale lagu oranayaa waxa kale lagu oranayaa saransoor waa gardheeras waxa garjanta Soomaali lagu oranayaa digoodi iyo gaal jecel iyo masaarena waa garjanta Soomaali lagu oranaya waayahay karuura Soomaali anigu waxba uma hayo waayo waabi igu cusub yahay baa halka anigu oodala Soomaali anigu aqaan oodala Soomaali cid kama hayo oo eer Soomaali ay halka ka wadaagaan gardheere Soomaalina wuxuu noqonayaa garre iyo umaaciye garre ayaa ku jira heerka garaha lagu yiraahdo noqonaya gardheere Soomaali iyagana waynu gali doonaa qabiilkooda Soomaali kumna wuxuu noqonayaa markaas hawiye iyo dir bal waxaan doonayaa hadaba halka marka aynu marayno inaynu reeraha bal sidan intaynu ka soo bilowno xaggan Jabuuti aynu sidaa u socono iyo siday u degaan waxa ay doonaynaa bal inaynu ka sheekayno marka ugu horeysa hadaba sida marka ay yihiin oo hawiyihii uu noqonayo isagu waxa jira de waa weeyaan lixda hawiyena waxa weeyaan rarale hawiye marka aynu mehedirka wax markaynu ka hadlayna dir irir baa wuxuu dhalay baa lagu leeyahay hawiye irir iyo dir irir marka wuxuu noqonayaa rarale hawiye garjanta gugundaba hawiye جنبي له هوية حاسكو له هوية كرل له هوية يقول قارته هوية ويا كرل له هوية مركع عين السوق هذا إنه وبديهن وينسوا قالوا دونا حقنا إنه كسب الله بدونا ويا مركع عين يقولوا غير كلا قوي له هذا درك أي الدروح وياهي إرز Soomaali waa reeraha ugu badan ururintayda aniga ugu badan Soomaalida maanta nool oo aad moodayso inay aad iyo aad deegaan ahaan iyo tiri ahaanba uu irir Soomaali u badan yahay isbahaysigaasi dir marka aynu soo qaadno oo hawiyaha ka badan odaygii diriyuu dhalay wuxuu dhalay baa lagu oranayaa madoobe dir mehedir madaxweyne dir iyo madaluug dir waan garanay aynu madaxweyne dir ku horeyno madaxweyne dir waxaa lagu oranayaa wuxuu dhalay maxamed
علي يحيى iyo hordare maxamed yuu dhalay maxamed wuxuu dhalay baa lagu oranayaa waa madaxweyne dirkaasi maxamed yuu dhalay gurgura iyo akish iyo gariira iyo warrawaro iyo abo iyo reer cawi ciise layiile madigaa reer dayo barsuugoo deegaan ku ah oo nin carabo ah wardaay jiidgale iyo axmed maxamed oo iyaguna ah wajis iyo sifir intaasuu dhalay hoordarana yuu dhalay wuxuu dhalay baa lagoonaya alaab weyn ijaajiya khayre waayo yaxya yuu dhalay yaxyana waa jubbooyinka hoose ku leeyahay yuu dhalay wuxuu dhalay baa lagoonaya dheere madaxweyne dheere yaxye okay waxa kaloo jira baa lagoonaya beelaha galbeedka dega baa lagoonaya oo ah dalbis iyo leeyile iyo dayle iyo guurajeeno oo iyaguna la dega waayahay reeraw ciise faarax iyo abikaar iyo sacad iyo nuur iyo cali iyo cusmaan iyo xuseen iyo cumar iyo adeerkood oo la dhashay oo la yidhahdo abkay xaaji ayaa iyaguna jira oo madaxweyne dirnalay waynu garanay bal markaa aynu soo qaadano reerka lagu yidhahdo ciisaha oo isagu ah madaxweyne dir madoobe dir waa 6 jilib baa la yidhahdaa ciisuhu 6daa jilib waxay noqonayaan baa lagu leeyahay hawl qaaday iyo hool iyo ceeleeye iyo horoone iyo wardiiq iyo urweyne way hawl qaaday waxa lagu leeyahay waa makaahil iyo iliya maxamuud oo la isku yiraahdo walaal doon holuhuna waa maxay waa mahadliya saaxiib oo la isku yiraahdo fuurlabe ceeleeyuhuna waa mamaasan nin wadkii galiyay mamaasan u geey waa halka yaani 12 geeday ciisaha marka la geeyo waa halka ugu dambeeya waayahay oo demada marka waxa soo galay waa Muuse Yoonis weeyaan oo Muusuhuna waa Sacad Muuse 6 reer ilmo Muuse Yooniskuna waa 5 ilmo Yoonis oo xigibkii reer geediga kamid ah oo xigibkii reer geediga reer kuliya kamid ahaayeen oo iyagu halka kala diga way waxaad u gelaysaa wardiiqi oo lagu oranayo wardiiqna waa waqtishiil iyo raamwaaq wardiiq oo ah marka waa beeshii magarasa ugaaskan iyo xeerkii daciisa markii la sameeyay 1600 ee lagu sameeyay tuulada Ashiya lagu yiraahdo tuulada ugaasku degana waxa la yiraahdaa waruufo sida aan anigu ku haya taariikhda rumiya been haday tahay mooyee xeerka ciisuna waa magta waa reerka kaliya ee maanta ciisa la yiraahdo maanta Soomaalida ee xeerkii wali iyagu haysta 12 ka geeday daanidii sheegay 12 ka reerka ugu dambeeyana waa mamaasan oo deynku inta kale baa biil uu ka qaadan kara laakiin kama mamaasan taabiil kama qaadan karo naku fasaana oo isagu wada halkii ugu dambeeyay horoonuhuna waxa lagu oranayaa waa habar walaal iyo geel walaal oo geel walaal waa Cabdi Aadan deey kalena waa geel weeyaan way markaad inta eegto urweynuhuna wuxuu noqonayaa Fiqi Xuseen oo isagu dhalay Xuseen iyo Muuse iyo Cabdalle oo dhalay Buuri Axmed iyo Koron iyo Cali intaasaan anigu qabiilka ciisaha ka soo uriyay oo aan hay'adda waa madaxii ilaahay waa la kala sii soconaya hayaay waa badan yihiin laakiin inagu de laamaha faraca hadhowta idinkaas kordhin kara laakiin jiridii laamaha u baynu sheegaynaa shaxda geedka reeraha way halka marka aynu kaga tagayno madoobe dir ayaa waxa aynu u galaynaa mudalugdir madaluug diriyo dhalay baa lagu oranaya makaahil iyo nuur iyo buufo iyo reer majnuun iyo reer xasan iyo gadabiirsi buu dhalay gadabiirsi baynu tageynaa gadabiirsi markaynu u galno horta ereygan gaada baa la yiraahdaa ama geedo iyo biirsi oo waqtigii fatuuxul xabash markaad egto buugii ninka carabka iyo qorayay waxa ku noolaa meesha reer la yiraahdo geedo ama gaada Saciid ninka lagu yiraahdo markaas Samaroon ayaa isagu u bahaystay dabeedna waxay noqotay ninkii biirsanayay geedo reeraha geeda lagu yiraahdo gadabiirsi halkaas ay ka timi waa sida magaca aan ku hayo ama ay reerahaas ii sheegeen bal aynu eegna hadaba gadabiirsigu wuxuu noqdaa habar cafaan baa la yiraahdaa iyo makadoor gadabiirsi markaad tiraahdo waa wada yihiin reeruhu laakiin markaad Samaroon tiraahdo waxa meesha ka baxaya oo aan iyagu Samaroon ahayn habar cafaan barkeed goba iyo jibraaci oo iyagu habar cafaan ku jiro waa goba Saciid Samaroon Saciid iyo jibraaci Saciid wala Saciid
saddexdood markaas Saciid waa Samaroon ninka la yiraahdo markaas Samaroon iyo Gadabiirsi way kala duwan yihiin marka ugu horeysa oo markaad Samaroon tiraahdo reerkii ma wada sheegaysid Gadabiirsi markaad tiraahdo ayaad reerkii wada sheegaysaa way makadoorkii muxuu noqonayaa makadoor wuxuu noqonayaa makahili Maxamed Casi habara cafaanayay noqonayaan waxa halka ku jira afar reer oo niyo markii anigu aan soo eegay la yiraahdo ilma Maxamed Muuse Subeer Samaroon oo waayo waxa Sacadkiyo Farolaha iyo Muusafiinka iyo magaranaysa ayaa lagu oranaya waa ilma Maxamed Muuse Subeer Samaroon waa cali ganuunka dhagaweynaha mijinka xeeb jiraha waxa weeyaan gobada jibraacinka waa habar cafaanta waa yahay makaahilkina wuxuu noqonayaa makaahil dheere يا أفرت الميونس محمد عسل وحنا نقول يا halka waa lagu gadmaa oo bahabar Muuse la sheega wala banina walaalo mugti ku heshii waa ilma Muuse afartoodu waa walaalo waa tolaya walba caynka ayaa marsay lahaay qistaas baa iga yara gadman laakiin waan diiso sheegi doonaa oo markii bagta isku leeyeen walaalkii raacay isagoo uurka ku jira maris ay kuwa kale ka qaadanayeen waxa kale oo jira bahabar cafaanka miyahay bahabar xasanka something adigu saddex bahabrooda ayaa iyaguna halka ku jira makaahila iyo afarta ilmo Muuse bahabar Muuse bahabar Bakorbaan malinay iyaguna ku jiraan marka horta marka adeegto afartan ilmo Yunisna waa Jibril Yunis Aadan Yunis Nuur Yunis Ali Yunis Jibril Yunis نور يونس هذا يونس يا علي يونس وهي جبريل يونس كما قاعد يكتب wuxuu si kala baxay isaguna ama odayga asoo dhalay qayr iyo gorod iyo hayd iyo qayr iyo gorod qayr baa si baxay Ismaan buu dhalaya Ismaanna wuxuu dhalaya Didib Ismaan Axmed Ismaan iyo Yunus Ismaan iyo Didib waa isku baxbalay Axmed waa bahgooni fakad ugu sii dheerna waa Yunus Ismaan ko reer Maxamuudka oo la yiraahdo halkaas iyaduna marka feeratay reer nuur kale isaga reer Maxamuudka ayaa aad badan bal marka malaha khad telefoon baa ku jira bal inaagna khadka telefoonka hada hello 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 aynu ka gudubno hello balka telefoonka qaado hello 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 ma maqlaysaa wala sifaan magacaaga yaad ka soo hadlayso walaal Cabdirasaaq wala dhahdaa waxaan ka soo hadlayaa dalka Norway haye maxaad nagala qayb qaadanaysaa Cabdirasaaq waxaan kala qayb qaadan lahaa waxaan wayra dhigaysnay barnaamijka kastoo kooxoga dhaaftay ha waxaan ku weydiin rabay dirir Soomaalaha dirir misal irir miyaha irir kuwa kale aan ka sheekeynaya walaal waa deer irir Soomaaliya sagaalkii Soomaaliya mid ku jira marka la soco waa kale imika galayaan ka sheekeynaya weeyaan okay ma geli wali marka ma waa kale ku jira ma irir ba diriyo wuxuu dhalay diriyo hawiye dirkiiba waxaan ka soo sheekeeyay madoobe dir madaxweyne dir ayaa labadaas imika ka sheekeeyay marka imika mihidir baan u galayaa marka waa in la socoto haddii la yiraahdo ولا اسمك ركي واي waxaan muqaatay macna dir irkaas macna wala ina la dir yahawiya walaala marka waa dir yahawiya marka waa irir Soomaali okay ma wala ma sit barnaamijka fiican ka fadhiisana insha Allah way wadid ay waad maasan tahay walaal okay marka aynu eegno hadaba aynu si yara wadno telefoonadu in yar baynu kaasaynu yara qaadayna dabeedna waxaan doonaynaa inuu ka dadajino si ay waqtigu inoo hello may maqlaysaa hello waayahay markaynu intaa ka gudubno ayay waxaynu doonaynaa bal hadda inaynu u gallo waxaynu gallay intii oo dhan bal waxaynu gelaynaa imika haddana madaxweyne dir oo madaxweyne dir yuu noqonayaa waa akishihii iyo gurgurihii waayey aynu soo qaadano reeraha iyagu jaarsada lagu yidhaahdo oo iyagu madaxweyne dir noqonaya reeraha haddii beedankeeda leeyahay gurguraha lagu yidhaahdo reerka lagu yidhaahdo akishada waxaasoo dhami waxa ay noqonayaan madaxweyne dir waaye markaad eegto warra dhanqo warra sanyo
walaabi wara ogo iyo wara dawaro waxa ay noqonayaan iyagu jaarsadii markaa wara dhanqo waxay noqonaysaa wara yano wara yaanyo wara igo wara maxamed wara yaanyo guyo wara akaako iyo wara areelo ayaa waxa noqonaya wara dhanqo wara sayo waxa noqonaya wara buko wara abiyo wara oromo walaabiguna waa wara cismaan wara cumar iyo wara baalcad intaas waxay noqonayaan markaasi warooyinkii dibadna way sii kala baxayaan oo de wara waliba reeruhoodii bay markaasi noqonaysaa gurguraha markaynu eegno wuxuu noqonayaa habar daar iyo heele iyo quwaax iyo liibaan marka quwaax wuxuu noqonayaa eel waaq nibidoor iyo biciido liibaankuna wuxuu noqonayaa gawaafitile iyo saanjeela iyo saanyaa habar daarna waxay noqonayaan kuundhible iyo cali iyo cabdalle waaye halkaa markaynu intaasi wadno ayaynu waxaynu gelin akishihii oo isagoo ah waramiyo wara warfaa reer dalal reer hawade reer agaal reer buke reer biyo waro luuto waro ito waro kiyo waro heebaan waro kuto waro abo iyo waro igo ayuu noqonayaan markaa iyaguna oo akishihii intaa aynu wadaynaana stil waa madaxweyne dirkii waa reerahaas oo dhamina halkay kala degaan waan idiin soo sheegi doonaa intaas oo reer oo madaxiiya bay noqonayaan dabeedna reeruhu waxay sii noqonayaan jilibadoodii hoose waayahay intaa marka aynu iyaguna halkaasi kaga gudubno ayaa waxaynu haddana de noqonaya oo meeshii imanaya mehedirna wuxuu dhalay baa la idhahdaa xiniftire iyo sure marka xiniftire maxamed buu dhalay maxamedna wuxuu dhalay biyamaal iyo baajimaal iyo isaaq baa la idhahdaa oo isagu deegaanku ah waayahay deegaanku ah okay maxaa kaluu dhalay qubays waxaa surana muu dhalay guutaale iyo buu dhalay agoon guutaale iyo cabdalle iyo qubays buu dhalay waayahay markaad eegta reerka lagu idhahdo sure markaynu eegno xiniftira hay dambeeye suruhu muxuu noqonayaa habar deel buu noqonayaa habar deel oo ah guutaale yuu dhalaya afarta ilma cabdaluu dhalaya afarta ilma cabdallana waayo waa maxamed cabdallo nacadoorkiya oo curadkiya oo curadkaasi intuu noqonayaa qotayse iyo xareen iyo guuleed iyo gariir iyo kaahin iyo ciisu dhalay baa loodhaya saleebaan cabdille guutaale sure mehedirna yuu noqonayaa waxa uu noqonayaa maxamuud saleebaan oo fiqi khayrkii oo 9 ilmo maxamed muuse ah ilmo muuse faarax buu noqonaya oo ilmo muuse faaraxna yay noqonayaan baa la oranaya waa reer agoon baa lagu leeyahay dabac iyo bayr maxaa lagu oranaya waa cismaan muuse waa la fijoogsata iyo dan siyaad muuse haarun muuse abbas muuse iyo fodcad muuse ayuu dhalay baa lagu oranaya ninkaasina okay cabdi dhalay waa fiqi maxamuud bari waa fiqi cumar maxamed iyo fiqi muuse fiqi oo ha xagee degaan markaa raas galgudud iyo meelahaas ay degaan okay fiqi maxamuud oo iyadoo bay degta iyo 10 jilib ee reer baay waayahay waxa kaloo jira laxmar iyo hogar cad oo Salebaan Cabdille la dega iyo Goraad Cabdalle intaas ayay horta noqotaa markaynu ogna reerka garaha hadaba lagu ilaahdo ayaa isaguna wuxuu noqonayaa qabiil aad u weyn okay garre wuxuu noqonayaa tuf iyo quraanyo buu noqonayaa way halka meel baa adkaanaysa oo marka la doonayo in hawiye la sii abtiriyo waxa la oranayaa hawiye giilaale baa la oranayaa awaramle hoon saransoor qabiilkaasi marka hadana niyo bal waxaad u fiirsataa marka garaha la sheegayna waxa la oranayaa garra giilaale awaramle hoon gaanjaan maataay baa la oranayaa marka waxaad moodaysaa labada artismi gaajaan iyo maataay inuu dheer yahay laakiin garre iyo hawiye de midna waxa weeyaan waa hawiye iril buu noqonayaa midna wuxuu noqonayaa garre ayuu noqonayaa oo garra xaguu gelayaa de waxa uu gelayaa madaxweyne dir baadoo fiirso marka hadana de sida ay u kala noqonayaan oo marka waxa lagu oranaya awaramle oo kala ayaa halkan hadana waa de sinteen sheegno irintiye oo iyagu hadana halka laga soo gelinayo marka waxa arkaysaa in awaramlihii de ku jiray magaranaysaa nimankii warsangari iyo awaramlihii marka hore de ku jiray qabiilkeenii koowaad ee magaranaysaa ilmo magaranaysaa saransoor ah maqaarna saransoor inay kala duwan yihiin oo laba reero halkooda kala oo aan halka la isgelin karayn way hoontu waxay degaan baa baydhabo iyo xudur gardheele oo isaguna wuxuu degaan misri iyo dirsame gaal jecel iyo digoodi waxay degaan iyaguna baali iyo jubbada sare iyo bay degaan baajuuntuna waxay degaan iyaguna magaranaysaa oo garaha oo ka yimina waxay degaan oo la yiraahdo oo iyaguna kali iyo noqon iyo kaliya oo quraanyo oo iyaguna xagga ka yara galaya dhinac waxay noqon iyaguna xaggaas meel bay la wada degayaan markaynu intaas oo dhan ka nimaadna saaxiibaya ayay waxaynu u galaynaa haddaba qabiilkii dirka loo oran jiray garaha loo oran jiray oo markaas isaguna tufi quraanyo waa
كو تفي قرآن يو أيو waxa la yiraahdaa quraanyo waxa koriyay adeerkii waxa ina guursaday in adeertii tuf baa wuxuu guursaday in adeertii marka adeerkii baa koriyay waxaanu dhalay baa laba wiil oo la yiraahdo furkasho iyo asarrena wuxuu dhalay baa la yiraahdaa laba wiil oo la yiraahdo banna iyo kaliya furkashe todobada nin ee la kala oran jiray buu dhalay hadaba oo ma garanaysaa labada nin ee banna todobada nin waxa la yiraahdaa hoodkaya birkaya hoytara dawara kala washe hulqad iyo subur kitaare ayaa la yiraahdaa ayuu dhalay ninkaasu okay inkasto oo hadana buu ku leeyahay tuf caruurtiisii eekada oo quraanyo la ilmaadeen tuf waxa uu dhalay baa lagu leeyahay laba wiil waa cali iyo noole kii hore quraanyo buu ee dhalay todobada nin oo markii hore ma garanaysaa uu sii dhalay ninka baana lagu yiraahdaa cali iyo odolo waxa uu dhalay baa la yiraahdaa 8 nin oo kala winna kala masha bursunne odaamiya maqaabili maaid ranmug iyo tubadi baa la yiraahdaa waayahay alleena wuxuu dhalay baa 3 wiil la kala yiraahdo kulalaad tawle iyo sabadhawa waa garihii waa reerahaasi markaa xaggay degaan waxa ay degayaan iimay waxa ay degayaan jaraati iyo liibaan waxa ay degayaan goda iyo qalaaf iyo mustaxiil iyo nustariiq iyo kabti nuur iyo qabri dahare cumar darre niman mayko qodi dulul burdhille baali iyo negeyle dhinaca kalena waxay degayaan foyaan biiro haramaayo misiyo gobolka shiniile oo dhan soo roganka ballaaran ee magaranaysaa reserve area oo halkeeya baa lagu leeyahay jigjiga jincase ajasakoora baabili guursuum haawaday harar heramaayo diri dhaba naasireed baa lagu leeyahay dhangago tuliguleed gobolka oromada iyo gobolka liibaan la yiraahdo oo dhan bay degaan reeraha imika ka soo sheekeynay magacyadeedu ku noqonayaan cajaybka aynu ku yaraha kan halka bal wixii telefoon ee ku jiray imika hadii telefoon ku jiro wax telefoon hadii ay ku jiraan hallo ma maqlaysaa hallo ha magacaaga halka ka soo hadlayso walaal awada wax ku soo leeyahay laba ma soo leeyahay haye magaca walaal marka wax leeyahay Cabdulqaadir haye waxaan doonayay barnaamijka la socday moogtiga marka aad baan u interest gareeyo waxyaabo badan oo uu dhaafay horta intii hore oo dhami haye marka waxaan doonayay inaan ku weydiiyo ma soo gelin kartaa website written oo qoraal leh oo dad badan ay ka faa'iideystaan isirkoodii insha Allah ta'ala shaqadeedu oo aad ugu yara badan oo waxa jiray imika Facebook la yiraahdo Israac af Soomaaliga oo aniyada waxaan soo gelgeliyo waxay noqonaysaa bal hadana imika intan oo aan soo ururinay koob ka sano inta la type gareeyo adigu waan keenayaa saxdooda in saxdii la sameeyo waa kulay nin iska hawla badan waan ahay laakiin waynu sameeynaa waa soo gelinayna khasab bi macna kalma wala هاي توصل سوق لسان عم صبرين كرسنا وقف كستبوا هاي وطن لسي إسر كوا أدبو مهم هاي القف كستبوا يسر كيسوق هذا هاي والله هو سوق لنا إن شاء الله تعالى ما قالوا لي بقربها دتك تشوفون أنت بدلنا وقرنا يعني هو يقول لي سبحان الله وارنت هذا أنا وأنت دول يا أبو أنت إلا سبرتون إن أنا بالجنسية دين اللي منهم جنسية الصومالية كلا عررنا يوم وين كلا فيقنا يبل إنان إسر كين اللي منهم بنوحنا وضع عنه وكا وإنك عروت عن الله ها waxaa laga yaabaa in ay abtirsiimadooda dambe noqoto geeska Afrikaanu ka nimiyo aabahay uu sheegin jiray meeshaas exactly marka waa isirkuna waxyaabaha islaamiyada ku muhiim ah oo diinta islaamka aad ugu muhiim ah waan sax walaalo marka insha Allah ta'ala waxaan doonayaa in bal aynu sida uga faa'iideysano oo bal caruurteena dambe برنامج كلام من نقول يا برنامج ده الصعوبة مسوي حلوة من ما تكلي كويك والله هدي كل إمك أنت ضد كاي قد البضي مدة إمك دور بلو طبعا أنت هذا ندي أنت بوجاك تيدي وتجي أيام دي بقصو من جوري مركا وحن كوري قبيل له ورميو وعليه ورم طبيعي دي ده مجاعي دي جودة هيرة هاي هراء بانكوسينا يا ومعنانا مليان بانكوري
وني والله شغل في عمل قلت هرت الله يبارك فيك إلهي كاج فايسي كودي جزاك الله خير والله أنا هو عندي أن برنامج داوما يركوها الله يوم مع الصوماليين إياد بارجو فرح صنعين الداوما هو تسوي اللي صادقنا الله يعيسك والله الله يعيسك مركا وحن كأصلا يا إنا إذا نوصل يسوي ويب سايت أو أنو كلا صور برينت أنسكري صنو والله وان صوب بعض الدنيا إنها هدي الله يرحمه وصوب الله يبارك فيك thank you very much جزاك الله خير والله تلفونك كله هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام والله وقت سيدي ما تحي ها waxa weeye walaal waan ku daawanayay ma sha Allah weeyaan aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay xagaad ka soo hadlaysaa walaal waxaan ka soo hadlayaa wadanka Ingiriiska haye in badan baan qoyska yaga iyo familka yaga waan ku daawanaa aad baan ugu faraxnaa runtii waxaynu nahay dad aad iyo aad ugu riyaaqaa walaal waad maasantay بالحقيقة أنه وحوي أدي بين سيدات وحكرة دكتية سيدات دخن كالصومالية قبائلات الصومالية إسر الصومالي وهذا شو وين قرنا حتى إسكده فحك وين قرنا والله وين قرنا عاد بعض ما قرنا وين الدوبنا عاد بعض ما صنت والله حتى فمل كيجا وين بلانسنا والله وبرنامج كليه هل كان أين كده وانا ومنك كليه الصومالي نود كتم بيسوي عنو كلا ديهم بعطاي عاد بعض ما صنت والله والله خير الله خصيو وحوي الدنيا على ذي بالله حسين يا وحوي ونني احترام بدن باطحي وحنا الله هاي كاستمر بدن باطحكم كل هذا هاي أدبان كود رجلينينا بعد ما صنت والله وحن جعلها أقوي هنا الصومالية يقن دولي دوار وفانا وحل يراهدو أوريجينال وحل ancestors بيال يراهدا absolutely waxa la original oo Europe way qortaa inagu maadee aynu qorin Soomaaliyan at least waynu sheegnaa naam marka aad baa lagu faa'iideysanayaa jiilka Soomaaliyada iminka soo koray inaan garanaynin waxa Soomaali la yiraahdo iyo laga yaabo in waxa library-ga ay ka soo eegtaan inaynan dhabahayn waxa dhacdoon ka soo qaataa xilli film la sameeyay Soomaali laga sameeyay dagaalkii Muqdisho waxa Mareykanka lagu dhigay waxa kamid ah meelan Soomaaliyiin baa lagu dhigay dadaan Soomaaliyiin baa dhigay marka dunida laga dhaadhiciyay wixii waa Soomaali Marocco lagu qabtay wadanka Marocco la yiraahdo lagu dhigay dunida waxa laga dhaadhiciyay xagga in Soomaali ta marka waxa weeye nin Soomaali yaqaan baa tahay hada arrimaha iyo waxa laga yaabaa waxa library-ga ardayda jaamacadaha إلا نيوزيلندا إلا أستراليا لقى دعوانا والله سنت والله حاجة واحد يكون سو أركان يو واحد إن تريني تلاقينا قبائل اللي يسكت دجالة يو واحد من دب أحباط هاي وفهمتي والله واحد كود ده كلام من ده حباط هاي منك كليه إن أديت أخرى يقنا بينه هاي هذا ما سنت والله والله أنا إذا هي بان خير في البنك عليه تيني يا هو يسحب كان إمام بدرتكم ما هو نفسنا إن إحنا كنا ليش ده أركتي ده ليش واسقة ما هو كذا إذا هي كده رجيو جزاك الله خير جزاك الله خير والكفر السنة والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد ما سنت أخذ كلامات بينو قاعدنا وياي أدبا بل أينو كجارسينو أما أينو مجرد سايا هذانا وضنو بالقبيل هلو marka bal hada waxaynu galeynaa qabiil kale inaada suruhu muxuu noqonayaa kasaalay cirdaye guutaale marka waa inaga soo sheegnay isaga suruhii oo mehdira bal waxaynu galeynaa hadaba daaroodki muxuu noqonayaa isaguna reerka daarood la yiraahdo waxa uu noqonayaa shan reer madax shanta madaxu noqonayaa waayo waa shantan wuxuu noqonayaa Ahmed oo la ahsade Maxamed oo isaguna kabla lixiya Xuseen oo tanada Yusuf oo Awtabla iyo Ciise haddii aynu eegno sada daarood anigu sidaan u soo aruuriyay waa mareexaan iyo facaye markuu facaye waa ka yar yahay mareexaanka muxuu noqonayaa hawraarsamiye urmidig buu noqonayaa hawraarsamana wuxuu noqonayaa bal gaalshireen iyo ku sheeshan gaalshireenna wuxuu noqonayaa reer xasan iyo reer isaaq reer xasan wuxuu noqonayaa maxamed daawud iyo wagarnaac waaye haddii aynu eegno kabla daaroodki waxa uu noqonayaa isagu koomada kabla iyo koomba kabla gari koombi hartu koombihi waa Ahmed iyo Maxamed iyo Maxamuud iyo Saciid iyo laba kale waan dadajinaya kooda waan isla garanaa wixiibe haddii aynu eegno ma garanaysaa koomada wuxuu noqonayaa afarta absamiye adeerkood waa ogaadeen absame wayteen absame jid waa qabsame baarcad absame iyo gelimayso adeerkooda ogaadeen haddaynu soo qaadano wuxuu noqonayaa tagaal waaqi tolomoge marka hore tagaal waaqo barwaaqi caabud waaq baa wuxuu haddana barwaaq baa soo haraya barwaaq wuxuu noqonayaa miyir walaal iyo muqaabil wuxuu noqonayaa makaahilo gumcadliya abreenkiya muqaabilka miyir walaalkan wuxuu noqonayaa maxamed subeer iyo buu noqonayaa
awliyahankii haddana oo iyo labadaas isku bahtanada aba bahgari marka la isku daro baahaday noqonayaan maxamed subeer baa markaa wuxuu noqonayaa isagu reer cabdulle iyo reer isaaq cali iyo haaruun iyo reer cabdulle isagoo magaraysaa dhowr iyo tobankii reer sidaas ayuu magaraysaa qabiilka ogaadeen ka waan isleeyahay waa qabiilka ugu sii yeedha lafta dheer halkaas ku soo go'aya haddii aynu u galno hawiye wuxuu noqonayaa isagu waan ku lixdii madax wuxuu noqonayaa raranla hawiye wuxuu noqonayaa gugundhabe hawiye wuxuu noqonayaa gargoorta hawiye karanla hawiye xaskul hawiye iyo jambeyle hawiye haddii aynu eegno markaa gargoorta hawiye waa maxay gargoorta hawiye wuxuu noqonayaa maxamed gargoorte silci gargoorto iyo maxamuud gargoorte maxamed gargoorte waa madhibaankii maxamuud gargoortena waxa weeyaan afartii ilmo hiraabe iyo silci gargoorte afartaa ilmo hiraabena waa maxay waa madarkicis hiraabe martiile hiraabe mudulood hiraabe iyo maxamuud hiraabe waxa dudublihii baa lagoonaya madarkicis hiraabena waa habargiritii mudulood hiraabena waa abgaalkii martiile hiraabena waa qoladii lagoonaya sheekhaas oo kale lagoonaya way soo geliyaan markaas madarkicis wuxuu noqonayaa sacad saruur iyo saleebaan iyo cayr buu noqonayaa abgaalna wuxuu noqonayaa waxay noqonayaan qoladii abgaal iyagu waxuu noqonayaa abgaalkii oo isaguna halkan wuxuu noqonayaa dalandoole iyo ciise iyo wacweyteen buu noqonayaa dabeedna haddii aynu dalandoole soo eegno hiilaba iyo cismaanka muxuu noqonayaa waa hiilaba cismaan abgaal cismaan wacdaan cismaan iyo buu noqonayaa moobileen cismaanka wuxuu noqonayaa abilig iyo magacle wacdaankina waxa weeya maalinle iyo wanqatiile maalinlena yuu noqonayaa wuxuu noqonayaa maxamed mooldheere iyo abubakar mooldheere ibraahim maalinle ayaa dee dhalaya labadan dabeedna waxay noqonayaan ardo iyo tifow iyo cabdi iyo yabarow okay intaa marka aynu ka tagno ayaa waxaynu gelaynaa karanle hawiye oo isaguna wuxuu noqonayaa si hawlo karanle gidir karanle iyo de murursadihiina waa kaa sabti iyo furculus oo iyaguna laftaa ugu weyn cudweyne maxamed iyo israafiilkii xaggaasa adiguna si yara dheeraanaya gaal jacelkii markaynu eegno waxa uu noqonaya gaal jecel iyo iyagu hadda xaggan maylo Soomaali ka gardheera Soomaali ka baan jeedaa ayaa haddana waxay noqonaysaa baadicadihii iyo jaceeladii iyo daajeenkii iyo magaranaysaa iyaguna waxay noqonayaan gugundhabe magacay noqonayaan yaa inoo haray jambeyle hawiye isaguna wuxuu noqonayaa ajuuraankii raranle cid kama aqaan sidaa marka aynu reeraha u eegno ayaa waxay noqonayaan haddana waxaynu gelaynaa reerihii lagu oran jiray mishinguuliga iyo reer shabeelowga iyo lixdii reere kale magaranaysaa iyaguna reer ee iyaguna ahaa magaranaysaa baajuunta baahan jeeda ahaa jareerta waayahay oo lixdii reere shiidlaha ahaa iyo dee mishinguuligii iyo nimankii dee oo iyaguna geela dhaqada iyo nimankii geel qaadka badnaa ee khatarta ahaa iyaguna magaranaysaa reer shabeelowgii qolooyinkaasina halkaas ayay inoo marayaan Soomaali waxa inoo harayaa markaynu eegno shaanshidii oo iyaguna waxay noqonayaan marka 12 reer oo iyaguna Barawaaniski iyo reer Bakari iyo reer Maxamed iyo reer magaranaysaa Axmed iyo nimankii baasharxiga ahaa nimankii magaranaysaa Xadramoodka ahaa shaanshidii oo iyaguna Cabdulla Iimaanka iyo reer Shaaciyo iyo magaranaysaa reer Shabeelow ahaa reer Waaqi reer Shiin garjantay iyo dhalmo garjantay la garjantay yaani de reeraha inta aan anigu hayaa waa inta aan soo baaray waqtiga ay eriyanaya oo aan magaranaysaa jees gareynaya waa de waxaan idin siinaya waa madaxyadii saraan idin siinaya 9 iyo 8 baa iyaguna halkan ku soo haray oo wadigil iyo mirif la barax weyn sida aad u taqaano biyo maalkii baa iyaguna halkan ma garanaysaa ay soo jooga de reero badan waxa weeyaan waan ku celin doonaa aniga oo ma garanaysaa barnaamij dambe bal hadayna soo kala faas gareynaya laakiin aqoontaydu waa intii ay siisay inaan waxaas oo dhan soo ururiyo bal hadda reeruhu inta Soomaalinimada sheeganaysa telefonka ugu dambeeyay ayaynu qaadaynaa hello ma maqlaysaa assalaamu calaykum haye walaal xaggaad joogtaa ka soo hadlaysaa magacaaga waxaa la dhahaa muxibo xaggaad joogtaa walaalo ingiriiska haye maxaad walaalo nin fiican aad waan saddex qabiilada laga daarad si fiican u kala faafaahisaa la rabay yaa walaalo ka dhigta igala soco daaroodka inaad si fiican u kala fallaaqaysaa la rabay daaroodka dee daaroodka walaal intaas umaan kaa qaadna haddii aad adigu dee soo buuxbuuxin doontaa insha allahu tacaala ila waa reer daaroodka waa badan yahay aad buu baday de lagama gajoonayo walaalo waa jid imika markaad eegto absamihii jid waxaan ka sheegay ogaadeen oo kaliya jid waa qabsamay weyteenka iyo barcad iyo galimeys baa haray halkan kale waxa haray yuusuf daarood iyo ciise daarood iyo tanada daarood oo iyagana aan aqoon fara badan u lahayn markaad eegto qolooyinkan kale ee dee magaranaysaa koombe kablalaha oo hartigiya dee markaad eegto imika dhul bahantihii wuxuu noqonayaa yaag siciid iyo yaxye siciid iyabuu noqonayaa
iyo oo shir shoore habar waa adigu dawa afarta ugaaska uu ku dhalay iyo afarta uu ku dhalay garaadka iyo Yaxya iyo Khalid aad buu badiyay warsangarigi imika markaad eegto ma jeerteen marka lagu yiraahdo reerka ma jeerteen la yiraahdo inta uu leegay waadiga arkay reerka lagu yiraahdo warsangari imika warsangari waa bah ma jeerteen isma waa ma jeerteen la waysku hooyee waayo warsangari nibay walaaliyin marka waxa weeye ninka ay walaaliyin iyo ma jeerteen baa walaalo noqonaya dashiishin iyo nin kale walaaliyin bilawadaas waalma Axmed ayaa waxay walaalo noqonayaan ma jeerteen baa walaalo noqonaya way wada ma jeerteen marka way farbadan yihiin wuxuu baan idinkaga tagayaa bal halka telefoon inaan qaado dabeedna aan هلو مقعاقي هلكاس كسو هادليسو ولا لندن ما كسو هادلي ولا هيه مقعا ولا حليمو هيه حليمو maxaad ma nagal qayb qaadanaysaa walaal barnaamijka maxaad nagal qayb qaadanaysaa walaal barnaamijkan halkan ka socda cabdigood baadiinayo hay walaal maxaad markaa doonaysaa inaan kaaga jawaabno waxaan doonayaa inaad iga jawaabtaan hee isagoo aan dhamaynba daaroodkii ayuu hawiye u booday mar hore sharxayay waxaas waad mahadsan tahay daaroodkii hawiye haween kala naqaanaa kulli waa wixii soo ururiyay weeyaan hawiyuhuna waa dee reer jira daaroodna waa reer jira cid walba waa reer jira wuxuu baanan taabanin la hadda waa isaaq aniga ah waxaan idinka marti ahay sida aan nin walba reerkiinu soo ururiyay inaad anakayga debal meelaha uga sheegtay laano isaaq isa sheegi maaye كذا بايو كل الحيس له وما هتنتين